بارك الله فيك جزاك الله خير. اخونا ابو هريره اسنا ومؤذن مساجد ويان. هيا ابو هريره تفضل كلمه شارك معنا. خير ان شاء الله تعالى. ننتقل الى الجزئيه الثانيه. هذه مكتبه بسيطه وتنوع مكتبات اسكاف فضود ويان ومساجد ولها كتب مطالعه ويان لايبراري ومارتي لغا فائدeysan كتبتن في لسان حالها waxay leedahay intan kuma filla masaajidka marka muxsiniin kordhiya loo baahan yahay oo maartay masaajidka maktabad waasica oo kutubtii maartay loo baahnayo maraajicda laga helo marka insha Allah taala dadka ka qayb qaatay waxaan rajaynaynaa hadana inay sii wadaan oo ka qayb qaataan masaajidka maktab u sameyntiisa iyo insha Allah taala markas al-furqan soo u aado marka manara iyo maartay khayr manbacul khayr oo magaalada Bambaas awal masjid weeyaan oo Soomaalidu marka ay sameeyso oo khaasatan manhajka salafka ah lagu daraasayo khuraafada iyo bidcadii waxaas oo dhan maartay laga saxo dadka insha Allah taala 10 badan ba ka baxa aqiido iyo fiqhi iyo ahadiith iyo intuba leh insha Allah taala akhuna kameradan hayana Ibrahim bali hada asna waa duruusta iyo 10 dhan ayuu duuba kutubtan hadda waa la keenay Sacuudiga iyo xaqaas hadda ka yimaadeen way cusub yihiin dad baa ku soo tabarucay oo muxsiniina Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyagana ajr hasiyo intan maktabada mudaraacada intan banaanka ana inay maktabada laga waasiciyaa la rabaa aduu Ilaahay yiraahdo marka waxa soo dhan waxa weeyaan dadka ka qayb qaatay ma insha Allah taala rajaynayna inay hadana ka sii qayb qaataan qaybtan albaabkan waa maktabada qaybta laga soo galo weeyaan dhinacan kalena waa xafiiski maamulka iyo idaaradda halkan xafiiska weeyaan maamulki halkan oo kale waa mitinka lagu qabtaa iyo shirka maamulka masaajidka iyo guddiga masaajidka iyo tarastaha markay shirhayaan halkan bay fadhiistaan waa xafiiski waxaan oo dhan waa dhulka hoostiisa dhinacana waxa weeye secretary-ga ama xooghayaha masjidka yaa asna fadhiista waa kombiyuutarka masaajidka iyo maartay mitimada iyo qoraalada iyo waxa soo dhan lagu sameeyaa ayda marka waxa xafiiskaas iska roon weeyaan afrikaan ahaan markii loo fiiriyo waa roon yahay steelka Yurub oo kale u yar egyahay qaybta afrikaankan uu ka yar roon yahay marka insha Allah taala barakallahu fiik dadka ka qayb qaata lacagtiina baa lagu sameeyay idan wuxuu kamid yahay sadaqa jaariya oo rasuulku idaa maata al-insaanu in qada amaluhu illa min thalatha sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafa'u bihi marka sadaqa jaariya Ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna ka dhigo idan waxaan u baxaynaa kor inta waa dhulkii weeyaan qaacadan waa dhulkii waxaan u baxaynaa qaybta koraan u baxaynaa halkan waa meesha masaajidka looga baxo qaybtan kale waxa weeyaan waa qol alaabta la dhiga masaajidka iyo waxaas store weeyaan alaabta masaajidka waxaas oo dhan baa lagu maartay lagu xifdiyaa lagu ilaaliyaa weeyaan boosku iska yaraa laakiin Ilaahay baa barakeeyay durajkan marka durjigan ama baalka jaranjaradan kor loo soo fuuli waxa u soo baxaysa masaajidkii baa hadda loo soo bixiyay qaybtiisi baa loo soo baxaya marka waa ka masaajidka marka hadda albaabkii madkhalkii ra'iisiga waa ka masaajidka halkan weeyaan dhinacan waa weysadii halkan waa weysadii waa qaybta ragga weeyaan waa weysadii waxaan weeyaan ilaa taqriiban waxaan rajaynayaa ilaa 12 inay tahay 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kursi weeyaan halkii mar 14 qof ku fadhiisanaysa waa qaybtii weysada halkan maartay halkan waa store ahaan weeyaan maartay halkan waa mas'uul weeyaan oo special fadhi dadka maartay curyaamiinta iyo disableki iyo lagu talagalay halkanna waa fayski masaajidka wajigiisa weeyaan waxaan waa laayaxada adkaarta iyo waxyaabahaas lagu qoray waxaan waa laayaxada masaajidka saacadihiisa weeyaan maartay taariikhda maanta waa taariikhda gaalada waa bishii saddexaad 16 March weeyaan 2011 dhinaca kalena waxay qaabilsan tahay hijriga waa 11 bishii saddexaad Rabiic Thani 1430 iyo labadii weeyaan hijriga halkana bishii afraad weeyaan maartay bishii afraad way noqonaysaa waa muharram iyo maartay safar bishii afraad way noqon halkan waa madkhalkii iridkii laga soo galay masaajidka weeyaan dadkan arkaysan waa dadka masaajidka ku tukaday qaybtan hadana waa qaybtii koobaad ee masaajidka ra'iisiga qaybtii masaajidka ra'iisiga weeyaan waatan halkii mar waxa qaad marka dadkaas jiifada waa duhurkii baa la tukaday waa la iska yar hargalay weeyaan hargal baa hadda lagu jiraa marka qaybtan waa qaybtii dhulka dowr maartay dhulka u horeeyay weeyaan masaajidka taqriiban wuxuu qaadayaa ilaa 250 ilaa 300 meelaha soo qaadaya marka 10 halkan baa lagu bixiyaa waa ka khadiibka halkaas uu istaagaa marka inta qaybta hoose weeyaan saacadiisii wixii dhow kuwaas marka roogiisan iyo wixii soo dhan kuwaas waad aragtaan marka waxaan rajaynayaa inuu qof kasta oo ka qayb qaatay bari maartay inuu aad iyo aad u farx gelinayso marka jamciidda la dhihi jiray Somali Sport ina xusantiin mooyaan lacagta laga goyn jiray dadka Somali Sport baa la dhihi jiray marka ma sha Allah barakallahu fiikum waxaan leenahay
إلهي سبحانه وتعالى صدقتنا في ميزان حسناتكم إلهي هذين كدر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم marka إلهي سبحانه وتعالى هذين كأجرسيه هل كان واستورك وحويان وحيا لا جهازكي maarta microphone-kii iyo qalabkiisii waxa soo dhan baa yaala halkaas lagu xifdiyaa lagu ilaaliyaa markii salaada la aadaamhayana waa la furaa oo maartay waa halkaas laga shidaa dhinacna waxa weeyaan waa qaybtii kale marka hadda waxaan u gudbaynaa hadana dowrka labaad dumarka iskale inta waa qaybta ragga laba qaybood oo qaybta u koreysa saddexaad iyo maartay iyo qaybta u hooseysa dhaxda waxa iskale dumarka iskale dhaxda waad artaan materiyaha iyo masaajidka qaabku u dhisan yahay darashadiisa baddi baa halkan u dhow oo aad arki doontaan baddi qaab fiican buu u dhisan masaajidku aad buu matiin u xoog badan yahay dhismihiisu halkan waxa weeyaan waa korkii marka meeshii jarjarada loo fuulahayay weeyaan wuxuu leeyahay marka dowrkan labaad ragga qayb uu ku weysaysto haddii hadhow hoose cidhiidhi noqoto raggu qaybtan bay qaarkood usoo gudbaan waxaan jeedaa weyse maaha musqulo weeye cafku waa musqulihii weeyaan halkan waa musqulihii marka dhinacan waa waxaa weeyaan waa musqulihii weeyaan marka qaybtan 1 2 3 4 5 6 ilaa 6 musqul weeyaan dhinacan kalena waxaa weeyaan 4 musqul oo kale xaggana idan 10 musqulood weeyaan buulaha marka ragga iskale korn soo yar fuulaan halkana tuubooyinka biyaha lugaha lagu dhaqdo weeyaan idan intaasoo dhan qaybta saas weeye halkanna waxa weeyaan waa dumarka iskale qaybta dumarka weeyaan marka way ku tukanayaan marka qaybta korana نطلع أولا فوق qaybtan haddana waxa weeyaan kor la sii fuulhayo waa raggi weeyaan ayaguna qaybtoodii kore u koreysay weeyaan qaybtan hadda dumarkan soo dhaafnay way ku tukanayaan markii bogaan rabna inaan ku noqono marka qaybta u koreysana waa tan waxa weeye ayadna weysadii bay leedahay waata weysadeedii tan baa ka yar weyn waa 16 weeyaan 16 maqcad weeye 16 fadhi weeye waad artaan masaajidka siduu yahay dhismihiisa aad u qurxosan si fiican muhandis aad cajiib ah engineer baa dhisay aad u fiican khayr Allah siiyo halkan marka waa qaybtii u shisheysay ragga u lahaa ee labaad ee saddexaad u koreysay dhaxda dumarka iskale waa qaybtan ayadna waa ragga iskale markuu masaajidku buuxsamo muxaadaraad iyo anshida ay jirto oo hoos raggu buuxsamo raggu halkan soo fuula dhaxdana dumarka iskale طيب حقنا dhirtan aad arkaysaan iyo geedahan waa weyn waad baddi baa tan ah baddi baa dhow oo geedahan dhinaceeda kala weeyaan baddi oo saa markaad uga baxday horay baddi baad ka arkaysaa oo ka galaysaa Ibrahim geedahan arkaysaan cagaarka geedahan baa baddi xigta marka geedaha saa loo dhaafo baddi baa la galayaa marka masaajidku baddu saaran yahay badda ayuu saaran yahay marka qaybtana waa qaybtaas ragga ayna taqriiban wuxuu qaadaa ilaa kam 200 maqaan gaari ilaa 200 qof meelaha soo qaaday 250 meelaha soo qaadaa halkan maxaa lagu talagalay masaaxiiftan arkaysaan dad baa ku tabarucay masaajidka masaaxiiftaas wada taala dad baa ku tabarucay waa la akhristaa marka ma sha Allah masaajid mutakaamil weeyaan hoga yar oo maartay dhamaystiran u baahan yahay qaybtana waa qayb insha Allah taala program baa la rabaa fusul baa la rabaa in laga dhiso fusul baa la rabaa in laga dhiso meeshan oo dumarkii waxa ay leeyihiin galaasyo 3 galaas kolba inta u noqdaan iyo xafiiskiisi baa la rabaa dumarkii in looga sameeyo hadii Ilaahay yiraahdo marka oo qaybta u soo koraysa ragga xogaa laga soo qabtay marka dumarka la rabaa in looga sameeyo fusul iyo galaasyo la rabaa in looga sameeyo dhinacna waa qayb kale oo laga soo fuulo qayb kale oo laga soo fuulo weeyaan halkan oo maartay dhinacan ka soo kanimidna waa laga soo fuuli karaa dhinacna waa laga fuuli karaa labaduba marka halkan marka laga deego dumarka loo dhacaya qaybta dumarka weeyaan qaybta dumarka weeyaan halkan marka masaajidka waa ka saddexdaas ku kooban yahay fooq dhulkana marka imkaaniyaadkii masaajidka tabarti muu leh laakiin wuxuu leeyahay macnaheedu dadkii dhisay
ha israacsadeen oo fusuushanna ha sameeyeen inta karaankooda insha allahu tacaala korkan kore markaan fuullo ayadna saddex waxaan u gudbaynaa u baxaynaa qaacadii kore masaajidka bannaanayd oo haddii la damcin wax lagu sii daro ayadna marka wuxuu noqon karaa qayb dhan buu noqon karaa fusuul iyo galaasyo dhan iyo wax dhan bay noqon karaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inay dadkii ka qayb qaatay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaga khayr badan uu siiyo halkana waxaa weeyaan waa qayb taangiyaasha iyo waxaas biyaha miyaa kuwana waa biyaha haamihii biyaha weeyaan kaydka ay ku shubayso maarka haamihii biyaha weeyaan haddii biyuhu go-aan iyo ba haamahan markaa loogu kaydiyaa waxaad arkaysaan oo dhan okaa baddiina halkan markaad taagan tahay baddii baad toos u arkaysaa wataa baddii muuqata subaxii intaa salaad subax tukatib aad jus quraan intaa akhristay haddana badda kusoo dabaalan waa meel aad u fiican weeyaan qalabkan waa qalabkii marka nadaafadii waxaa qaabilsan alaabtii ahayd weeyaan waata qaacadana fi lmustaqbal baa la rabaa in la dhiso hadduu ilah yidhaahdo dabaq la sii saaro galaasyo halkan iyo korkiisoo la dhiso marka madaaris iyo fusuul iyo xafiisyo iyo waxaasoo dhan baa mustaqbalka la rabaa in laga waa masaaxo fiican oo aad iyo aad intan ay ku fadhidaya in la eg baa la dul saari karaa haddii imkaaniyada iyo dhaqaalaheeda la helo idan wuxuu noqonayaa markas mutakaamila macbad oo salaadii musalla meel lagu tukado qayb dumar qayb rag qayb qaaco muxaadaraada qayb galaasyo oo taxfiid quraan iyo madaaris islaami iyo tarbiya islaamiya lagu barto waa ka masaaxadiisa farxadaasoo dhan baa markaa ka bannaan marka insha allahu tacaala reer Holland dadkii lacagtii soo ururiyay asalku ahaa iyo inta kale maartay ka qayb qaadatay ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir badan baan uga rajaynaynaa in ilaahay xasanaadkooda iyo miisaankooda u saaro maalin aad ugu baahan yihiinna oo ilaahay maartay uu siiyo marka insha allahu tacaala wasiiqadaas aan idin soo gudbinaynaa marka anaad garanaysaan oo maartay aanu heeg iyo Holland iyo meel kasta aan mari jiray wakaas marka natiijada insha allahu tacaala masaajidkii iyo lacagtaan ururnay natiijadeedii waa maartay inta duruus 10 ka socota masaajidka 6 habeenba ama 7 habeenba waxba lagu akhriyaa bas 6 habeen miya meelahaas buu baacdo habeen kasta waa buuxa duruus 10 ama ahadiith ha ahaato ama aqeeda ha ahaato ama kutubo kale ha ahaato wuu buuxa marka dhammaan masaajidka duruustii waxa dhan waa camiran yahay marka ma sha Allah dadkuna aad bay ugu raysteen waliba khaasatan Soomaalidu masaajidda bamaaso khuraafay u badan yihiin sadarteed marka qaybtan albaabkan waa dumarkii weeyaan way joogaan hadda marka ayagana marka qaybtaasi leeyihiin xaggaas ka soo galaan way joogaan ha la bi ku jiraan ay xagee ku jiraan qayb bas iska la tukan haya iska qaybtana marka halka soo istaag bas qaybtan arkaan gabdhihi baa ku jira dukan hayaan qaybtaasna waxa weeyaan waa dumarkii weeyaan dumarka iskale hadda iyagii baa ku jira